sidoo kale waxay nala jooga halkan martiyo badan oo ka mid ah magaalooyinka derisyada nala ah sidoo kale cuqaashii salaadiinta aad iyo aad baynu ugu mahad celinanaa waxaan si loo fahmo inagu shirkeeni warkii saaka aynu isla gebagabeynay tanna waxaynu ugu talagalnay inay wasiiradu maadaama ay nasiib u yeelanay inay noo yimaadaan inay nagala qayb qaataan xidhitaanka shirka iyo oo shirkaasoo runtii ahaa shir dhaqan shir duco shir la sugu yimi halkan oo lagu ducaysanayo quraan akhris iyo rabbi bari ahaa marka waxaan akhriyi doonaa go'aamadii ay ka soo baxay shirka si ay wasiirada iyo madaxda qaranka nala joogtaana ay go'aamada inoola ogaadaan oo inoola sheekelayaan ama inoola fahmaan go'aamada shirka beesha aadan madoobe waxaa ugu horeeya qodobka koow beeshu waxay si buuxda u taageersan tahay jiritaanka qarannimada jamhuuriyadda somalilan iyo xukuumadda somaliland qodobka labaad beeshu waxay ugu baaqaysaa guud ahaan dadweynaha jamhuuriyadda somalilan ilaalinta nabadgelyada lagu tabcay qodobka saddexaad beeshu waxay iska bixinaysaa wixii dadka kale ku lahaayeen wax hore iyo wax dambeba qodobka afraad waxa weeye nabad kula noolaanshaha beelaha deriska iyo kuwa kaleba qodobka shanaad waxa weeye beeshu waxay door muhiim ah ku leedahay bulshada reer somalilan dhexdeeda waxayna diyaar u tahay inay kaalinteeda weligeed ka qaadato qodobka lixaad beeshu waxay u mahad celinaysaa xukuumadda jamhuuriyadda somalilan oo uu hogaamiyo mudane axmed maxamed maxamuud silaayo waxqabadkeeda faraha badan ee wax ku oolka ah waxayna isu diyaarinaysaa inay saamigeeda ka qaadato waxqabadkaas qodobka toddobaad ee ugu dambeeya waxa weeye waxaa la asaasay guddida beesha aadan madoobe u talin doonta oo ka kooban 16 xubnood toddobada qodob ayay ahaayeen runtii waxaan ugu talagalnay in wasiirada iyo heer qaranba iyo dowladeenuba ay nala ogaataan shir dhaqan buu ahaa shir nabadgelyo ahaa shir horumarineed buu ahaa shir lagaga tashanaya aayaha beesha iyo aayaha jamhuuriyadda somalilan iyo aayaha dadka ayuu ahaa qodobadan ka soo saarnayna waxaa ka mid ahaa toddobada qodob oo ugu muhiimsanaa runtii